barnaamijkeena maanta waxaan ku falanqayn doonaa xayawaanada ugu waaweyn ee ku nool dunidan aynu joogno. badanaa masasku waxa ay khatar ku yihiin bini'aadamka. waxa masaska ballacooda iyo dhererkoodu aad u weyn yahay ay cabsi ku abuuraan dadka ka ag dhow markaa maskan waxaa lagu magacaabaa bison mersin. dhererkiisu waa 7 mitir. maskan waxa uu miisaankiisu yahay 136 kilogram. maskan waxaa markula qaadi kara 15 nin. maskan waxaa lagu soo bandhigay xarunta Guinness World Record ee caalamiga. maskan ayaa la sheegay in xataa qof dhan liqi karo bilaa hakad haddii aanan la xakamayn. maskan ayaa waxaa lagu hayaa xero aanu dadka u dhowaan karin. waa sac lagu magacaabo Blueson. da'diisu waa 3 sano jir. waxa uu galay Guinness World Record. sacan waxa uu Guinness World Record ku galay saca ugu dheer dunida. hadda sacan waxaa lagu dhaqaa beer ku taala dalka Mareykanka. faraskan waxa uu dhashay sanadku markii uu ahaa 1928. faraskan ayaa soo jiitay indhaha dadka fardaha xiiseeya. waxa uu Guinness World Record ku galay faraska ugu weyn dunida. faraskan waxa uu baqtiyay 1948 isagoo da'diisu tahay 20 jir. aygan ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Arizona ayaa waxa uu jabiyay rikoorka World Guinness Record. aygan ayaa waxa uu ku jabiyay ayga ugu dheer dunida. aygan ayaa waxa uu ka qayb galay barnaamijyo caalami ah. aygan ayaa la sheegay in abateedku u furan yahay maalintiina calaf aad u badan dhaadhiciyo. yaxaaska ugu weyn dunida. yaxaaskan ayaa waxa uu noqonayaa yaxaaska ugu weyn dunida. yaxaaskan ayaa noqonaya yaxaasyada ugu weyn ee webiyada ku jira. yaxaaskan ayaa lagu soo bandhigay beerta xayawaanada. indhaha yaxaaskan ayaa la sheegay inay soo jiiteen dalxiisayaal badan oo ku soo qulqulaya tuulada laga helay yaxaaskan. waa bakaylahan waxa uu galay Guinness World Record. waxa uu noqday bakaylaha ugu weyn ee dunida jira. barnaamijkeenina maanta waxaan ku soo afmeeraynaa intaa. waa kulan dambe oo xiiso leh.